wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Aadan Xaaji Ibraahin ayaa maanta booqday dad dhaawaca oo ku jira isbitaalka Madiina oo dhawaan ku soo dhaawacmay qarax miino ay maleeshiyada al-shabaab ay geliyeen inta u dhaxaysa isgoyska lambar 4 ilaa isbitaalka Banaadir dadkaas oo dhawaan ku dhaawacmay qaraxaasi xilli ay la socdeen gaari BL ah Dr. Aadan Xaaji Ibraahin waxa uu ka warbixiyay xaaladda bukaanadani jiifa isbitaalka Madiina iyo sida wasaaradda caafimaadka ay u doonayso in loo caawiyo bukaanadani oo qaarkood aad u liidata xaaladooda caafimaad saddex ka mid ah bukaanadaasna ay ku goriyoodeen isbitaalka intii ay jiifeen Dr. waxa uu sharaxay sida dadkan ay u dhibaataysan yihiin qaarkoodna ay aad xaaladooda ugu liidato ayna u baahan yihiin gacan bini'aadanimo taas oo ka dambeysay qarax imaan daweed saddex maalmood ka hor ka dhacay meesha bukaanadii dad waxay ku gaareen inaan soo arko xaaladdaasi tahay iyo kuwii hor usii jiray oo mataqaana xaaladooda aad u liidatay isbitaalka guud ahaan inaan ka warqabo maadaama aan mar walba mataqaana bishii hal mar horeyba ugu booqi jirin arki jirin in xaalad isbitaalka aan soo aragno oo si wuxuu ku sugan yahay soo ogaana ayaa booqashada iyo badnay maxaa halkaas ku soo halkan aad ka arkaysaa indhaha hadda oo kuwa maamulka isbitaalka waxaan kugu siiyay والله waxaa muxuu ahaa dhibaato inay jirto kulay wax isweydiina ma aha isbitaalka oo yani awoodiisa iska kooban tahay oo يعني isbitaal loogu talagalay waqti nabad ah inuu shaqeeyo oo dadka kala duwan ku shaqeeyo laakiin hadda inta u badan cudurradan waxyaalahan dhaawacyada iyo emergency u badan oo qabto culays badan inuu ka jiro ay ugu siiyeen in isbitaalka mararka qaarkood sariiraha isaga loogu talagalay iyo dadka la geeyay aad iyo aad u kala badan yihiin taasna ay mushkilad keenayso marka inkastoo isbitaal mar walba sariirta marka adduunyada la fiirinayo waxaa lagu xisaabtamaa sariirtaas inta bukaan ayaa lagu daaweyn karaa bishii ama sanadkii waa wax standard oo leeyahay waaye yani haddii isbitaalka uu 100 sariirood ahaa ama 80 ahaa macnaheedu ma 80 ka in mar walba dadkii hore ay buuxinayaan waa limaan isku bedela waaye marka tirada mataqaanaa timaado in aad u badan tahay oo ilaa 500 600 bishii inay timaado waa ii sheegay sariiraha meesha yaalin ay xadidan laakiin haddana يعني maadaama ay isku heer ahayn dadka dhaawacayaasha meesha la keeno waxa dhici karta dad badan oo dhaawac noqdo in horay ay ka baxaan oo ay recovery sameeyaan sidoo kale agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo la hadlayay TV-ga qaranka iyo raadiyo Muqdisho ayaa nooga warbixiyay dhaawacyada kala gedisan ee isbitaalka jiifa waxa uu sheegay in tirada isbitaalka haatan bukaanada dhaawacyada ay jiifa ay gaarayaan 600 oo bukaan 10 ka mid ah dadkaasina ay yihiin caruur waxa uu tilmaamay in dadkan ay ku soo waxyeeloobeen rasaas madaafiic iyo qaraxyo kala duwan oo ku soo haleelay qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxa uu tilmaamay in bukaanada haata isbitaalka jiifa ay yihiin kuwii ugu badnaa ee بريها وحوا لذلك مشكور وهاي لكن بريها أنا خدين وحوا يعني بدون كانوا سنين حوق هذيك السوق أو أبريل 2009 يا إلا هذا شقة عروس يكيد أو بدن ما هذه كرع كذا اسبتال فيه ومتقنا اسبتال أو ولاش كلا قريب سنة أكسس كود ابن مغضي بيزي اسبتال بيزي وهاي هذا بيزي وهاي أو عيدنا معنا حكمنا مثلا ترى قرية دعاية تمام راح أشوفه حوالي كل سنة اسبتال إنه كان مدة تمن يتطور قف هي كتبت تطور متقنا سيبي أنتم مطلع يقولوا رابطه سيدي تمام ده معي كل تمام واجبتها تقول تمام كاشتوي ما هو منا ما دام يعني نبشر تاجنا عندي قاضي وحكمت لنا أنا كيس دحاج إنه هاي قال لي ماذا هو ازدواج هاي سبتال بيزي هاي مركا بقول كنا سيعيشن الشنة أنت يعني أنت نوعية عادية هاي وظيفة عادية هاي لا شقيان هاي بقول كنا سيعيشن الشنة وحكي شقيان وحواي أنا ضد كل كسر عين أنا ضد حضرتك كسر عين أنا ضد مين بمبق dadka ay dhaawaca dadka xaaladooda sidee tahay xaaladooda inta isbitaalka jiifto badidooda boqolkiiba 90 waa fiican yihiin qaar xaaladooda aad ay u liidataa qaar waxay u baahnaan lahaayeen
caafimaad dheeri ah oo ama takhasusaad oo iyo qalab oo meeshaan aan helin in mataqaanaa dibadda loo qaado. Isbitaalka Madiina ayaa ah isbitaalka ugu weyn ee la gooyo dadka ku soo dhaawacma dagaalada iyo qulqulutooyinka ka dhaca magaalada Muqdisho, kuwaasoo inta badan ay dadka rayidka ah ku waxyeeloobaan. Leila Cadad Ismaan, TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.